السلام عليكم وإذن سلامي صاحبada khaaliga ah maanta iyo vlog cusub iyo video cusub runantii sidaad ka warqabtaan maalinta labaad ee ciid ayaan waxaan soo aaday safar gaaban safarkeyga waxa uu ka wajahnaa dhankan iyo shabeelaha hoose halkaan aad u jeedaan waa tuulo ku taalo gobolka shabeelada hoose gaar ahaan waxay hoos tagtaa degmada Afgooye tuuladana magaceedana waxaa la yiraahdaa Moordiile dadkayga way ka saayaan dadka qaarna inaysan weligood maqlin ayaa laga yaabaa balse waa meesha aan ku dhashay runaantii halkaani waa webiga Shabeelle webigan aad arkayso waa webiga Shabeelle waxa uu maraa tuulada dhinaceeda ayuu maraa runaantii tuuladii asiga aad iyo aad ay iskugu dhow yihiin oo waa webiga ay beeraha iyo waxaas ay ku waraabsadaan runaantii safarkeyga halkaan ayaan ku imaaday oo aan usoo dalxiis tagay inta ugu badan ciid waliba waan soo booqdaa oo halkaan waxa jooga hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay runaantii xagaasna waxaan Muqdisho waxaan u joogo waa waxbarasho balse familkeyga inta ay joogaan hooyo aabe iyo walaalaha ila dhashay xagana familkeyga ayaa jooga oo halkaas ayaan wax ku bartaa sidaan maanta booqashadeyda aad ku quruxda badan waxaan jecleystay inaan vlogan yar aan idinku tuso qaabka uu u yaalo tuulada iyo beeraheeda qaabka ay u yaalaan runaantii meeshaan ma ahan beer balse waxa loo yaqaan siif dadka qaar inay yaqaanaan ayaa laga yaabaa waxa loo jeedo siif runaantii siif waa meel ay ka baxaan cambaha iyo waxyaabaha sida qumbaha iyo waxyaabahaas ayaa ka baxa waa sida aseendada oo kala waaye qumbaha iyo cambaha ayaa ka baxa runaantii hadeer waxaan ku dhex soconayaa meesha loo yaqaan siifka halkaas ayaan dhex wareegayaa maadaama aan asxaabay idin dhahay waxaan isku soo laaban doonaa maalinta Jimcaha balse waxaan jecleystay maanta Jaanis ayaan yar helay oo shalay daraad Jaanis ma aanan haysan maadaama aad Jaanis heshay waxaan is dhahay waa inaad asxaabtaada vlog u duubtaa oo aad meeshaan tustaa quruxdeeda iyo qaabka ay u taalo runaantii aniga aad ayaan u jeclahay inaan soo booqdo mar waliba meeshaani runaantii waxaa laga yaabaa inaad maqlaysaan cod shimbiro waan rajeynayaa inaad maqlaysaan ilaan maxaa yeelay waxaan duubaya waa vlog ma ahan muuqaaladii hore ee aan soo dadka kale isticmaali jiray ee aan codkeyga soo dul saari jiray balse si toos ayaan waxaan ugu duubayaa kaamirada telefoonkeyga run ahaantii vlogan ayaan jecleystay inaan idin tuso sidaad arkaysaan meeshaan waxa ku wada yaalo waa geedado waxaana ku soconayaa aan ku lugeynayaa dhinaca webiga waa subax ay saacadana ku beegan tahay aan dhihi karo 3 saac ay ku beegan tahay waxaan siifka u soo aaday inaan ku lugu baxsado sidoo kalena waxaan jecleystay inaan vlogan idin duubo runaantii sidaad arkaysaan bartaani waa meel ay biyo ku jireen biyihii ayaa ka yara baxay oo waxa ka soo dhashay coos iyo waxyaabahaas sidaad arkayso gudaha ayaan u sii galayaa xoogaa si aan idin soo tuso gudaheeda xoogaa meeshaas dambe ayaa biyo ku jira sidaad arkaysaan ishaad u muuqanayso balse halkaani biyaha waa uu ka baxay oo coos baa ku yaala cooskana waa noocan cooskani sidaan u dheer ayaa ku yaala sidaad arkayso waa kina cooska si fiican ila arka okay kadib waxaan idin tusi doonaa biyaha waa kay sidaad arkayso biyo yar ayaa weli ku dambeeya sidoo kale meeshaan waxa ku nool xayawaano shimbira ah xayawaanada shimbira noocyadooda kala duwan kuwa la yiraahdo bolombolo kuwa la yiraahdo wiiro waxyaabo fara badan xayawaan kale oo magacooda aqoonin ayaa ku dul nool sidaad arki kartaba xoogan waa yar mugdiyo subaxnimo ayaan duubayaa muuqaalkan sidaad arkaysaan waa kuwa shimbiraha qaarkood ayaan isku day doonaa inaan duuliyo ama aan ka buriyo meesha si ay kor ugu duulaan kadibna aad u aragtaan sidaad u jeedo waa kuwa waa shimbirihii mid hawada duulaysa waad arkaysaa waa aniga ayaa duuliyay meeshana ka buriyay qaarka kalena waa kay oo biyaha ay ku dhex jiraan
shimbiradan waxaa la arkaa keliya xilliga uu biyaha jiro oo meelaha biyaha ayay jecel yihiin oo meelaha khaleelka kuma noolaan karaan oo biyaha inay dhex dabaashaan ay dhex socdaan ayay jecel yihiin balse waan kasoo laabtay markaani waxaan soo aadayaa dhankii iyo siifka ayaan usoo noqonayaa adeerna waxaan kusoo noqday dhankii iyo siifkii runaantii cambahani waa camba dumay oo waa khalalay waqtigiisa ayaa soo galay oo wuu dhacay sidoo u taagnaa wuuna khalalay cambahan adeer qori ayay ka dhigan doonaan dadka iska leh sidaad arkaysa waa camba dumay runaantii weli waxaan ku dhex soconayaa halkii iyo siifkii ayaan ku dhex soconayaa oo haddana mar kale waxaan ku leexan doonaa bartaan si aan usoo aragno ayadana waa meeshii aan hore idin soo tusayay oo kale waa iyadana sidii oo kale shimbirihii iyo waxyaabihii kale ayaa dhex degan balse waan isla soo arki doonaa markaan waxaan rajeynayaa inaad u arki doontaan si fiican ama idinkugu muuqan doonto si clear ah oo nadiif ah dhankan ayaan ku sii soconayaa waxaan rajeynayaa inaad ila socotaan oo aad ila daawanaysaan vlogan weli haddii aadan vlogga inoo like garee sidoo kalena commentigaaga kasoo dhiibo ma jeclaan lahayd meel noocan ah inaad timaado oo aad usoo dalxiis tagto si aad ugu soo dabaashaad runaantii waa kuwaan shimbirihii aniga ayaa wada kicinayo oo dhagax baan ku tuuraya wax baan ku ridayaa si ay meesha uga duulaan aad idinkuna u aragtaan sidaad arkaysa meeshan waxaa ku yaala waxyaabo cadcad geedkaas cadcadka waxaa loo yaqaanaa ama la yiraahdaa babacooni ayay yiraahdaan runaantii waan ka xumahay asxaabay fiidiyogan wax idid gareen ah kuma sameynayo oo si toos ayaan u duubayaa mana idid gareen karo oo waqtiga iima saamaxayo si toos ayaan usoo dhigi doonaa keliya waxaan rabay inaan idin tuso meesha aan jiro iyo qaabka aan u safrayo iyo dalxiiskayga inaan idin tuso ayaan rabay oo wax idid ah kuma sameynin muuqaalkan si muuqaaladii hore balse idid weyn ayaan sameyn jiray idid ayaan gelin jiray balse kan si toos ayaan u duubayaa oo idid waqti uma heli karo marka adikan waxaan rajeynayaa inaad ila socotaan oo aad ila daawanaysaan okay waxaan idin tusi doonaa ama hadeer waxaan u soconaa meel loo yaqaano bracket ama berged waad maqasheena umaleena meesha waaskada yar oo biyaha lagu shubto marka waaskadani waxaa loo isticmaalaa beeraha ayaa lagu waraabsadaa oo matooro ay waxaas ayaa saaran oo beeraha ayay biigeysaa oo dadka ayay biisiisaa laakiin hadeer waan kusii dhowahay waan isla arki doonaa oo waa idin tusi doonaa waa idin korgeyn doonaa waa meel matooraha laga kiciyo webiga ayay biig ka soo qaadayaan matooraha kadibna waxa ay ku shubayaan waaskada ama barakada ay ku shubaysaa kadibna waxay sii qaadayo kanaalka wax la yiraahdo ama farta biyaha sii qaado runaantii waa kuwan matoorada kuwan ayaa la yiraahdaa webiga ayay biigka soo jiidayaan kadibna bargidan ay ku dhex shubayaan kadibna waxa biyahaasi qaadi doono kanaalka wax la yiraahdo ama farta biyaha loogu talagalay inuu maro oo beerta geeyo waxaan rajeynayaa inaad intaas ila aragteen kuwaanina waa sawiro yar ee aan qaaday inta aan meeshaasi dhex soconayay marka saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad vlogan u daawateen waxaan idinka codsanayaa inaad commentiga inoogu reebtaan wixii fikrad ah aad qabtaan haddii aad jeclaan lahayd inaad timaado meeshan oo kale fikradaada commentiga inoogu reeb waad ku mahadsantihiin haddii aad weli nagu soo biirina nagu soo biir oo channelka inoo subscribe garee mahadsanid saaxiibka sharafta lahow sidaas nabadgelyo.